Siigada mararka qaar waxay keeni kartaa madhalaysnimo. Ma ahan inay markasta keenayso madhalaysnimo oo ay khasab tahay, laakiin way dhici kartaa sida aqoon-yahanada qaar ay sheegayaan. Mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay aafada siigada. Mowduucani wuxuu ka mid yahay mowduuceena taxanaha ee halaag la magac baxay. Waana qaybtii 10aad ahna qaybtii ugu dambeysay ee taxanaheena halaag. Intaan mowduuca gudaha u sii gelin, fadlan muuqaalka like noo saar. kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Siigadu waxay daciifisaa jirka. Waxaa la sheegaa qofka haddii mar qura uu siigaysto, xubin walba oo jirkiisa ka mid ah dheecaan ayaa ka imaanaya, kaasoo keenaysa in awoodda jirkaaga uu daciifo. Daal, madax xanuun, dulqaad la'aan iyo wixii la mid ah baa laga dhaxlaa. Badanaa siigada waxaa u dhiban dadka muddo sanado ah soo siigaysanayay oo gacantooda isticmaalayay. Dhalinteena Soomaaliyeed intooda ugu badan gacantaas bay isku qaadeen, oo dadka aan siigaysanba waa dad aad iyo aad u yar. Weliba haddii uu qofku mar barto, way adagtahay si uu iskaga dayn lahaa. Si kasta uu u dhaarto, ballan kasta uu galo, way ku adagtahay inuu iska daayo bahashaas. Dhalinyarada qaar waxaa jirta oo u dhaarta in ay iska daynayaan. Ilaahu haddaan mar dambe siigaysto, hay cafin buu leeyahay, kadibna waa ku laabanayaa. Sida aan ku arki doono kommentiyada muuqaalkan dhexdiisa ku jira oo aan gadaal ku arki doono, oo xitaa dhalinyarada qaar ay ku dhaaranayaan, qaarkood xitaa ay dhahayaan haddii aan u laabto diinta islaamka meel aan kasoo gala ma jirto. Micnihii heerkaasay maraysaa sidii ay dhalinyarada iskaga dayn lahaayeen. Wax walbay u sameynayaan, qaar u dhaarta, qaar dha diinta waa ka baxaa, qaar dhaha mar dambe ku laaban maayo oo ballanqaadyo badan sameeya. Laakiin saas oo ay tahay intooda badan waa ay ku laabtaan. Ani ahaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ila soo xiriirtay, qaar TikTok ila soo xiriiray, qaar WhatsApp-ka, qaar xitaa YouTube comment igu soo qora oo dhaha sideen iskaga dayn karnaa aflaanta xunxun ee galmada ah, oo aan kaga soo hadalnay muuqaalka ugu horeeyay ee taxanaheena halaag. Iyo qaar waxay weydiiyaan sidee iskaga dayn karnaa siigada. Dhalinyarada qaar waxay ii sheegeen in wax walba ay sameeyaan sida iskaga dayn lahaayeen, laakiin ay ku adkaatay inay mar un iska daayaan siigada. Maalin kasta ay xumaantaas sameeyaan, wax ay go'aan ku qaataan inay iska daayaan, laakiin maalinta dambe dabinkaas way ku dhacaan oo wixii sidii balwadda oo kale buu u qabanayaa, wayna ku adkaanaysaa inay iska daayaan. Waa aafo dhallinyaradeena aad u saamaysay. Weliba dumarka naftirkooda waa ay sameeyaan, laakiin ragga ka khatar badan. Markaa mowduucan baaray waxyaalaha aan akhriyo waxaa ka mid ah, waxaa la dhahayay dumarka badanaa siigaysta waxaa dhici karta inay ku waayaan xubintooda bikranimada, laakiin ragga kaga badan. Dadka badanaa khiyaaliga ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah, dumarka waa ay ka dareen badan yihiin ragga. Mar walba qofka galmo iyo wixii la mid aad u raadiya waa ragga ee dumarku ma ahan. Dumarku waa marka ugu dambeeya ayay ka fakaraan. Haddaba waxaad isweydiinaysaa, qaabkee madhalaysnimo looga qaadaa siigada? Markaad xaaskaaga u tagaysid oo hawsha gogasha aad ku jirtid, marka ugu dambeysa aad biyo baxaysid, waxaa la rabaa in biyaha ragga ay hal mar boodaan si ay ula falgasho ukunta dumarka. Biyaha ninka ee awoodda ku socota, hal xabba ka mid ah ayaa waxa ay jabinaysaa ukuntaas oo ku guuleysanaysa in ay gudaha u gasho, taasoo hadhow kuu sababaysa in ay xaaskaaga uur kuu qaado. Haddaba waxaa la sheegaa ragga in badan soo siigaysanayay, biyahooda waa uu yaraadaa, walow markii uu dawooyin iyo cunno nafaqo leh uu cuno ay soo laabanayaan. Laakiin marnaba isku mid ma noqon karaan dadka siigaysta iyo dadka aan siigaysan. Biyaha yaraanaya keliya ma ahan, oo ninka marka uu muddo soo siigaysanayay, awoodda biyaha uu big ku dhihi lahaa uu ku boodi lahaa ma lahan, taasoo sababi karta inay mararka qaar xitaa ukunta ay gaari weydo. Marka qofka siigaysta awooddii uu biyaha ku boodi lahaa ma lahan, waxa uu isku darsaday biyo yar oo daciif ah, xaaskiisa uu qancin kari waayo, xubinta oo yaraata. Waayo waxaa la sheegaa dadka badanaa siigaysta xubintooda ma ay korto, marmarka qaarna waxaa dhici karta inay sii yaraataba. Laakiin qaabkii aad cilada uga bixi lahayd waxaa kugu filan oo keliya in aad iska daysid. Waayo markaad iska daysid, jirkaaga soo laabanaya awooddiisa, celcelinta biyaha way awoodeysanaysaa, biyo baxa degdega ah waad ka raysanaysaa, fahankaaga soo laabanaya,
waxaa la sheegaa dadka badanaa siigaysta fahankoodu aad buu u cuslaadaa. micnihii dhib oo dhan baa meesha ku jirta haddii aad sii wadid. haddaad iska daysidna intaba waa kasoo kabsanaysaa. dhibta ugu weyn ee dadka siigaysta haysta waxaa ka mid ah waa biyabaxa degdega ah, taasoo sababaysa inaad xaaskaaga si fiican aadan u qancin. dumarku waxay u baahan yihiin nin in badan la ciyaaraya, laakiin ka waran qof 3 daqiiqo wixiisa ku xaajo gudanaya, ilaa 5 daqiiqo, qaarkood 10 daqiiqo, meesha ay iyadu rabto ilaa 30 daqiiqo 40 daqiiqo in lala joogo. halkaa hadhow khilaaf weyn baa ka imaanaya. waxaaba dhici karta inay tiraahdo ifur. wayna dhacday, qisooyin isoo gaaray way dhacday oo nin siigaysan jiray baa ka sheekaynaya. waxa uu yidhaahday waan siigaysan jiray, kadib baa isla markiiba waxaan guursaday gabadhaasina waa aan qancin kari waayey. markii dambe furniin bay iga dalbatay, anna ma khasbin oo waan furay. haddana mid labaad baan guursaday, tii labaadna sidoo kale igu dhacday oo waxay tiraahday ifur, waxba ma tari kartid oo waxba firaashka kama qaban kartid. taasoo hadhow ninkii gelisay murugo iyo tiiraanyo aad u dheer. waayo wax ka xun ma jirto in lagu yiraahdo wax mataraa tahay nafur. dhalinyarada badanaa waxaan kula taliyaa dadka ila soo xiriira, markii aad siigada iska daysaan oo weliba ugu yaraan 8 bilood ilaa sanad ay kasoo wareegato, markaas guurso. laakiin haddii aad iska daysid adoo bil ay kasoo wareegato ama ka yar ama 5 bilood ay kasoo wareegatay, waxaa dhici karta inaad xaalad murugo ah aad gashaan adiga xaaskaaga, waayo si fiican uma soo kabsan. waxaa dhici karta sanad, 2 sano, 3 sano ilaa 4 sano inaad soo siigaysanaysay. marka waxay u baahan tahay in aad si fiican usoo kabsatid. markaad si fiican usoo kabsatid kadib 6 bilood, 8 bilood, sanad ilaa wixii la jira, markaas si fiican waa uga soo kabsatay, markaas waa guursan kartaa. laakiin in aad ku degdegtid waa arrin khatarteeda wadata. maalin dhoweed anoo TikTok isaga jira waxaan arkay bostiga waxaa ku qornaa sidaan u siigaysanaya heer waxaan gaaray midigta markii ay daasho inaan gacanta bidix u bedelo. runtii wallaahi waa arrin khatarteeda wadata. bostiga kommentiyada laga bixiyay baan akhrinaya, weliba waan dhammaystay dhammaan kommentiyada waa wada akhriyay, sababtoo ah xilligaa waa markii aan baaritaanka mawduucan ku jiray. meelo badan aan ka baarayay, ha noqoto websaydyada, muuqaalada hore laga diyaariyey YouTube ku jira, carabta iyo wixii lamid ay ka diyaariyeen. marka mawduuca baaristiisa baan ku jiray, markaasaa bostiga arkay, kadibna kommentiyada waan akhrisaday. kommentiyada qayb ka mid ah ayaan soo qaadanaynaa oo weliba falanqaynaynaa. mid baa comment ahaan waxaa ku soo qoray, habeen waxaa noloshayda soo martay aan go-aan ku gaaray haddii naftayda dib ugu laabato aan dil ku xukumo. sanad iyo 7 bilood baa kasoo wareegatay, alxamdulilaah. micnihii ninkan waxa uu leeyahay haddii aan siigada dib ugu laabto waxaan ku xukumay naftayda in aan dilo. horta hadal aan ku raacsanahay ma ahan. haddii aad naftaada dishid horaa naarta ka galaysa sida nebigu inoo sheegay. weliba nebigu wuxuu inoo sheegay dadka naftooda dila inay naarta ku waari doonaan. runtii wayna adag tahay qof inuu naftiisa dilo, waa iska hadlayaa baa laga yaabaa. laakiin dadka qaar ee aan iimaanka lahayn ama iimaankoodu aad u liito waa ay ka suurowda inay waxaa sameeyaan. waxay ku tusaysaa siigada dhibta ay ku haysa dhallinyaradeenna oo aad bay uga cabanayaan runtii. weliba maaseejyada iga soo gaara TikTok-ga iyo YouTube-ka iyo wixii la mid ah aad baa ula yaabaysaa runtii. commentiga labaad wuxuu u qornaa sida tan, wuxuu yidhaahday inaan siigaysano dumarkaa ka mas-uul ah, aakhirana ma cafin. horta waa runtiis, waayo siigada 100% waxa ugu weyn ee keena waa dumarka badanaa isu soo qaawiya ama kuwa marooyinka ku dhigsan xiran oo aan xishoon. marka uu ilaahay dhahayay dumarka xijaabka ha gashtaan oo ha is asturaan, dhibtaasaa ilaahay nooga baqaayay. commentiga saddexaad aan u gudbo, mid baa soo qoray wuxuu yidhaahday mar baan go-aansaday haddii aan ku laabto inaan diinta islaamka meelna aan kasoo galayn, balse alxamdulilah waan ku guulaystay. arrintaa runtii waa khatar, waana khalad in diinta lagu kaftamo ama sharad lagu dhigto. haddaad tiraahday diinta waan ka baxay, si toosa uga baxaysaa oo diintu ciyaar ma gasho. markaad ka baxday diinta dib waa ugu soo laaban kartaa, laakiin wixii ajar iyo xasanaad aad shaqaysanaysay intii ay yareyd way baaba'aysaa. marka ma fiicna in diinta lagu kaftamo. waan ogahay dhibaatada ay ku hayso siigada, laakiin xaalka halkaa ha gaarsiinina. commentiga afraad aan u gudagalno, mid baa waxa uu soo qoray
waxaan iska daayay markii cunug facay ah uu idilay. Cunugaas baan u duceeyaa wallaahi. Hadda waxaan marayaa in xaafadaha oo dhan layga ciseeyo. Awoodayda leh, maasha Allah. Wiilka commentigiisa ku dheeraan maayo, laakiin ogow qofka siigaysta awooddiisa oo dhan baa daciifta. Weliba aad iyo aad buu u daciifaa. Xitaa inuu socdaa ku adkaata iska daa wax kale. Mararka qaar waxaa dhici karta isaga oo iska socda inuu dhacoba uu suuxo. Sida aan commentida qaar aan ku arkayay, mid baa wuxuu ku soo qoray sidaan u siigaysanay heer waxaan gaaray in aan jooga ka dhaco. Waana wax macquul ah. Commentiga kalena waxa uu qornaa sida tan. Waxa uu yiraahday siiga heer waxaan ka gaaray marka aan suuga dharbaaxo inay biyo iga yimaadaan. Dadka qaar waxaa dhici karta inay dhahaan wiilkan waa mid iska kaftamaya oo iska hadlaya, laakiin runtii wallaahi waa arrin jirta oo dhalinyaro badan ay ku dhacdo. Xitaa wiil aan saaxiibo nahnay baa igu yiri markii aan damco inaan gabar u tago anoo gabadha xitaa xubintayda aan u isticmaalin baan is arkaa inaan isla markiiba biyo baxay. Kadibna waan ka kacaa gabadhaas oo waan isaga tagaa. Markii aan ka tago kadibna aad bay iga xanaaqdaa. Maxay la xanaaqi weyday? Waaba ku bargoysee. Haddeer xaaskaaga xalaasha ah ma ahayn, laakiin ka soo qaad haddii ay ahaan lahayd. Sow intay xanaaqdo furniinka ma dalban lahayn. Xitaa ninka gogosha ku xun badanaa xitaa dumarku way iska furi karaan oo way iska fasakhi karaan. Waa hadduu ninka ku adkaysto inuu gabadha sii qabo, laakiin ninku haddii uu xagga gogosha ku xun yahay way iska furi kartaa. Waxaana ka furi karaa maxkamadda oo kaliya. Maxkamadduna shuruud bay maraysaa. Hadday tiraahdo ninkan ha layga furo xagga gogosha iguma qancin oo waa nin aad u liita oo aad u daalan, markaas waa laga furayaa. Hadday tiraahdo biilkeenana ma siiyo, sidoo kale waa laga furayaa oo way isfasakhi kartaa. oo markaa khasbiyan ma aha inuu ninka furo, maxkamadda ka furaysa, laakiin shuruud baa la marayaa. waxyaalaha qaar oo macquulka ah baa lagu furi karaa. laakiin nabigu aad buu inooga nahayay in gabadh ay ninkeeda furniin ka dalbato iyadoo bilaa macno ah oo aan wax dhiba qabin. markaas nabigu waa naga nahayay. waliba xadiis aad u culus baa ku yimaaday. laakiin haddii ay ninka dhib ku qabto, dhibtaasna ay tahay dhib aad u daran, marka waxaas oo dhiba maxaa kuu keenaya? waa siigada. wallaahi marka aad siigada bilowdid waa marka aad adduunka nacaysid oo aad noqonaysid qof nool oo haddana aan noolayn. biyabaxa degdeg ah waxaa keena laba mid baa keena. ima in aad tahay qof siigaysta ama inaad tahay qof xanuunsan. wiilka saaxiibka ayaa kulay ma xanuunsana oo waa nin caafimaad qaba. waxaan ku leeyahay saaxiib iska daa bahashaas. kolay waad i daawanaysaa oo kanaalkayga waa ku xiran tahay, laakiin adiga iyo dhammaan dhalinyarta i daawanaysa oo siigaysata waxaan leeyahay iska daaya bahashaas. wallaahi waa khatar. maalinta iska daysid bay adduunka nimcadiisa kuu bilaabanaysaa oo horumar oo dhan aad gaaraysaa. adduunka ku iftiimaya. wallaah waxaa jira rag badan oo dhaha siigadu waa caafimaad. jawaab siin maayo kuwaas. haddaad tahay qof siigaysta dhibta ay kugu hayso siigada commentiga inoogu soo qor. wax kaleba iska daa qofka siigaysta soo maahan kan xaaskiisa xalaasha aan qancin karin. sawkan ma ahan awood darada ay haysato. xumaanta siigada waxaa kuugu filan in xubin walba oo jirkaaga ka mid ah ay dheecaan ka imaanayso. waa halka mar aad gacan iskula tagtee, taasoo hadhow sababaysa inaad noqotid qof daalan oo tabcaan ah. lugaha, gacmaha, madaxa, meel walba laga hayo. shaqo kuma fiicnid, cibaado kuma fiicnid, dhanka sariirta kuma fiicnid. meel aad ku fiican tahay ma jirto. marka dambe heer waxaad gaaraysaa nolosha dhan aad nacadid. marka kan dhahaya siigadu waa caafimaad, jawaab intaa ka badan siin maayo. marka waxaan mawduucee kusoo gabagabaynayaa sidee la iskaga dayn karaa siigada. su-aasha runtii in laga jawaabo aad bay u adag tahay. jawaabta saxdana ani kuma siin karo. waa in aad go-aan adag aad qaadataa, go-aankaasoo marnaba aadan ka laabanayn. weliba aad cibaadada ilaahay aad toosisaa. salaadana si fiican waa inaad u tukataa. haddaad tahay qof siigaysta, salaada si fiican uma tukatid ama maba tukatidba. marka salaada xumaanta oo dhan bay kaa nahayinaysaa. ina asalaata tanhaa cani ilfaxshaa'i walmunkar buu ilaahay leeyahay. oo haddaad salaad saxan tukan lahayd ma aadan siigaysan lahayn, xumaana lama imaan lahayn. waa dhici kartaa qofka in marmar xumaan la yimaado oo bin aadan baa la yahay
oo asxaabtii baa khaldami jirtay. Laakiin xumaanta inay soo noqnoqoto waa runtii waa arrin adag runtii. Talada kale aan ku siinayo waxa weeye haddii aad marsiigaysato ama xumaan ku dhacdid ilaah u toobadkeen. Astaghfirullah dhe waayo xumaan baa ku dhacday. Beri haddaa ku dhacay sidoo kale ilaah u toobadkeen. Mar walba markaa ku dhacdid ilaah u toobadkeen. Waayo waxaan aad samaysay waa wax dembi ah oo inaad toobad keentid lagaaga baahan yahay. Mar walba aad ku dhacay ilaahay ma sanad wadid. Mar walba aad dembi ku dhacdid waa ina ilaah u toobad keento. Hadhihin mar walba waa ku dhacaa ilaah miyuga aqbalay haddataan. Waayo ilaahay dembi walba waa aqbalaa oo waa ku cafinaya haddaa ka toobad keentid. Waliba ilaahay waxa uu jecel yahay addoonkiisa dambaaba dembigaana ka soo laabta. Midda kale ducada badi habeenkii iyo maalintii ducayso. Dadka wanaagsan u tag oo ku dheh ii duceeya. Waayo waxaa jira dad uu ilaahay ducadooda ka aqbalo uusan ku soo celin. Walaal ilaahay ku xirnow oo go'aan adag qaado. Maanta wixii ka dambeeya dib ha ugu laaban. Maanta taariikhda qoro oo dib ha ugu laaban. Dhibaatada siigada sababta aan ka sheekeynay waxa weeye waa inaad iska daysaan. Waan ogahay si la iskaga day aad ba u adag tahay. Laakiin go'aan adag qaado. Maanta wixii ka dambeeya dib ha ugu laaban. Dadka qaar baan aaminsanayn in la iska dayn karo oo ay ku adag tahay. Laakiin haddaad go'aan rasmi ah qaadatid waa iska daynaysaa. Goorta iska daysid muddo sanad ama muddo 8 bilood ay ka soo wareegatay iska guurso haddaad awoodid. Waa talo aan ku siinayo. Intaas ayuu mowduuceena ku egyahay. Taxanaheena halaag waa uu noo soo dhamaaday. Qaybtan 10aad waa qaybtii ugu dambeysay. Waa in salaamaya wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.